كل ما دقمدو سيدا أركتين ده قبل كحوي قبل بلارن وبحدي سله دقمد النوى دقمد أقوب بلارن قبل كسناك أنت بدل مركز أديكتو أديجي ده الدولة ده أديك أحبر الشطا أقول دايرية أو ميل والبطاقة أنت بدل سومالي لان أديك أحبر الشطا نمو وده قارين بقول كي بقى فرتن أنا قارين أي شراء ظروفها كلي challenges كأد بيفرق بدنيهن حالها تاجن باكمدة وحكمدة قبل كوا كلفوق infrastructure كي ودوين كأوحن وحكمدة محو هاي دت كأود وحوي حوالو دقتو قبل كانوا أبدا وهذه الشير سكول ده مركز طاي عمرمان مركز برواقنا أي عمرمان مركز أبارهنا أي دمان وعرورتي وحيد لا تجو وحكلا challenges كقبل كهستكمدة وحكمدة دتك أو حبرشة كو وعيقشنين runtii waxyaabo badan oo dee qabsoomeyna waa jiraan aad iyo aad ayaan dhammaantiin idinku soo dhaweynayaa shirkan saafjildar ahaan kolley deegaanka ceelaf weyn iskuma cusbin in badan baan ka shaqeynay laga bilaabo abaarihii 2017 ama 2017 abaarihii dhacay oo xafiiska burco ahayd runtii markii dib loo furay mashaariic badan oo doorna ka fulnaa marka imika kolley wasaaradda waxbarashada waxaan u wada soconaa waxa weeyaan in la eego baahiyaadka waxbarashada ka jira waxbarashada deegaanada guud ahaan iyo runtii mashruuc kamid ah mashaariicda afurka wasaaradda waxbarashada runtii oo ah mashruuca weyn ee GP-ga ama Global Partnership qolada ay bixiso lacagtiisa oo ay tahayna meelaha runtii aadka mashruucani oo nuxurkiisu daaran yahay waxa weeye in iskuulada haday noqoto xaggii iskuulada oo kale meelaha iskuul lahayn wixii iskuulada mashruucan ugu jiray iskuul loo sameeyo sida waxbarashada asaasiga ama primary schools iyo dayactirkooda qalabeyntooda haday noqoto xaggii kale waxyaabo kale waxbarashada saaciiday sida qalabkii macallimiinta iyo waxbarashada ay shaqeyn lahayn wasaaradda waxbarashadu waxa ka socda reform waxa la doonayaa in adeeg loo soo daadijiyo isbedel baa ku socda marka in loo soo daadijiyo adeegii ilaa degmooyin tuulo iskuul la gaarsiiyo marka resource-kii awalda central kumba lagu xaga salon baa la lahaa wax liba yaalin hadda waxa la doonayaa in laba xilba la soo daadijiyo marka waxaan doonaynaa ujeedada weyn aan doonaynaa waxa weeye inaynu samayno guddi heer degmo oo ay ka kooban yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan xildhibaano ganacsato salaadiin madax dhaqameed haween iyo culimaawidiin dadka degmada ceelfin maxay tiin aad soo samaysataan ee guddida noqon doona waxa kala shaqeyn doona hadii la yiraahdo DO iyo guddoonka waxbarashada gobolka markaad soo gudbisaan waxa loo gudbinayaa wasaaradda waxbarashada ee centralka markaas la approve kareynaya guddidaas waxay ka soo tala bixin karaysaa mar walba meelihii ay jirto maxaa la yiraahdaa baahida waxbarashadu deegaamada si ay ugu baahan yihiin iyo meelahaas aan doonayna wax laga qabto meelahaas aan maxay ahaateenay doonayna inaad waxaasaan soo ururinaa wax naga qabta iyaguna waxbay saarayaan oo xilo waxbay ururin karayaan markay mandate helaan oo awood yeeshaan haddayna anagu wax qabsanna wax ka soo la sugaa biyo gacmaha laga dhirgaabalay madashan aynu joogno ee ceelaf weyn degmada ceelaf weyn runtii waa degmo gobolka Sanaag ku qaaliya waftigan idin socdaana waa waftigii wasaaradda waxbarashada runtii heer qaran runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markii koowaad ba markaan arkay degmadii ceelaf weyn oo isku duuban oo waliba waxbarashadii ka hadlaya oo jecel in wax loo qabto waa wax aad iyo aad loogu farxaa anaguna aad baan ugu faraxsanahay runtii waxqabadka wasaaradda waxbarashada waxa uga dejisan ajindahana ceelaf weyn way ugu jirtaa markasta ujeedadeedu waxay ahayd maanta inuu nidku nimid inuu wadsano xagga waxbarashada baahida taalla wadanka gaar ahaan xagga deegaanada kuwa aan iskuulada kuwa aan lahayn waxaanu ka qaban karnaa hawlaha noocaas inuu ka wadsano ee nidku nimid maamul daadijinta aynu ka wada hadallo oo si maamulka loo daadijin lahaa waayo imika ay ku haboontay waqtiga ugu hagaagsan ugu fiicnaa ee aynu maamul daadijinta bilaabi lahayn waa imika hadii maanta maamulkii daadijinaynu doona kheyraadkeenu qaybino oo keeno deegaankii degmooyinkii hoose alxamdulillaah rabbil caalamiin aynu raawayaan taas waa kamid maamul daadijintaasi wax kamid si iskuulka lagu noqon lahaa iskuuladii COVID-19 ayayna saameeyay oo keenay dhibaatooyin fara badan caruurtii iskuulka way ka maqan yihiin TV-yada iyo programin marka hawada loo marinayo inuu barnaamijyaas inuu wadnay hasaate kulli insha Allah ilaahay wuu naga dul qaadayaa waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay ilaahay nagu mahadnaqaynaa
in baran saabka noo sheegay gobolka Sanaag leeyahay wax xanuun oo ma kaysoo laga helay oo cudurkaasi ma jiro taasaaba horta iyadu aad iyo aad loo farxaa hasaatiin carruurtii iskuulkii lagu soo celiyo taana waan khayr wada hadlayno ka wada shaqeyn doonaa waxa kale oo aan jeclahay inaynu ka wada hadlo wax qabadka aanu idin hayno wasaaradda waxbarashadu ay doonayso deegaankan maxaan ku dhahday Ceelaf Weyn inay ka qabato intaasaynu maanta dul maraynaa wixii tala iyo tusaale oo la idinka fadhiyaa odayaashii waddantiin cidin ka maqana bahdii waxbarashadu way joogtaa maxaan ku dhahay golihii deegaanka iyo madaxdoodii way marayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxba inaga waxma markan tushano talada isku og aynu kala tagaynaa allah ma hadle farxad weyn bay tahay in deegaanka dadkii joogay iyo waxgaradkii ay ku doodayaan ama ay ku dagaalamayaan maxaa la yiraahdaa waxbarashadii in ahmiyad weyn xaggooga ay ka tahay aniga qorsheyn ahaan ama wasaaradda waxbarasho ahaan waxaan danaynaynaa wax weeyaan arday inuu wax barto iskuulada xidhmay aad baan uga xumnahay covid oo kala isagana saameyn weyn ku yeeshay waxbarashadii oo waatan dhowrka bilood laga maqan yahay waxyaabahan danaynayna wax weeyaan in iskuuladii lagu soo noqdo qayb weynna inaad ka qaadataan laba waxyaabood baa deegaanka ka jira inay saameysay dhacdooyinka ka dhacay inta badan waxbarasho goobta iyo sida oo kalena covid-19 marka waliba waxa u sii dheer sida uu DO-ga uu ka dhawaajiyay waxbarashadu deegaanka dadka joogay kuma wacyi gelshana ahmiyada ay leedahay anagu waxaan jecelnahay inaan bal horta wixii aan wadno aan nala eegtaan waxaan kala tashanay wax weyn inta badan gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag iyo la taliyaashiisa iyo DO-gaba intaanu haynaan soo bandhigi doonaa waxa kale oo noo raac wax weeyaan inaan ogaano maamul daadajin bay wasaaradda waxbarashada wadaa in deegaamada horta bal degsiimooyin Ceelaf Weyn imise degsiimay leedahay oo degaan oo waxbarasho looga baahan yahay intee ayaa la degin kuwa la dego tiro intee leego arday ayaa laga heli karaa intee isku jiraan imise iskuul baa loo dhisi karaa baahiyaha ay qabaan waa noocee waxyaabahaas oo dhan kuwa aan wadno iyo goobaha wax ka qabanayno iyo cidda nagala qabanayso Save the Children ay nagala joogto marka waxaan rajaynayaa inaan iminka markaan akhrino goobaha ama aan idin soo bandhigno goobaha degsiimooyinka kuweebaa la dugsi kuweebaan lahayn hadday leeyihiin waa noocee dugsiga leeyihiin ma waaba ma hal galaas ba ma laba galaas ba meesheba u baahan iminka si mudnaanta aynu sii kala siinaa dhammaan dalka oo dhan baahiyaa ka jira 1469 goobood ay la degsiimo ayaa assessment lagu soo sameeyay qaybta ugu dambaysan ku adkeynay wax weeyaan dugsiyada qaabkii loogu noqonayay arday baan u baahanahay anagu wasaaradda waxbarasho ahaan sanad kastaba waxa noo yaala qorshe ah imisa arday baa sanadkan iskuulada soo galay imisa ka baxay oo jaamacadaha sii gali doona ama secondary-ga u gudbay marka gobolkiina waxa looga baahan yahay ama deegaankiina waxa looga baahan yahay inaad ay kula tartantaan deegaamada kale marka ardayda sideen ugu soo celin karnaa qorshayaasheeda kale waxa kamid ah ardayga meel fog jooga iskuul aan soo gaaraynin isugu xaq buu leeyahay iskuul helo laakiin sidee lagu gaarsiinaya marka waxyaabaha laga doodo waxa kamid ah kale in loo iibiyo bahlaan loo yaqaan tablet-ka ama mobile solar oo casharada loogu shubo oo ardayga goobtiisaasi uu joogo lagu gaarsiiyo waxbarashada waa maasantiin